shirkadda Beko ayaa deeq lacageed waxay u qaybisay qaar ka mid ah dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qarxii 14 bishan ka dhacay isgooska Zobe. Dhaawacyadan ayaa sida ay u kala darnaayeen ay shirkaddu ugu qaybisay deeqdan lacageed, waxaana ay sheegtay in ay tahay midan garib istaaga shacabka Soomaaliyeed ee waxyeelada ay soo gaartay. Maareeyaha guud ee shirkadda Beko Cabdiraxmaan Cali Jaamac ayaa ka hadlay deeqda lacageed ee dadkan dhaawacyada ah ay u qaybiyeen, waxaana uu sheegay in shirkaddu ay ka danqatay dhibaatada shacabka Soomaaliyeed soo gaaray. mar labaad anigoo ku hadlaya magaca shareholderiska shirkadda Beko, magaca board of directorska, magaca maamulka iyo shaqaalaha shirkadda, waxaan taasi tiiraanyale idinla wadaagaynaa culayskii iyo dhibkii ka dhacay Zobe ee sababay dhimasho nafeed, dhaawac iyo hanti burburtay intaba. walaalayaal, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinla wadaagaynaa culayskii iyo mashaqadii iyo tiiraanyadii ka dhacday meesha iyada ah. walaalayaal, haddii aan nahay shirkadda Beko, maadaama aad tihiin macaamiishayadii shirkadda oon aaminsannahay dhammaan dadkii meesha wax ku noqday inay ahaayeen macaamiisha shirkadda Beko, haddii wax ka dhimanayeenna aysan wax weyn ahayn, ayaan waxaan jeclaysanay inaan ka qayb qaadanno culayska halkaa ka dhacay. annagoo sidaan horeyba u sheegnay uga qayb qaadanay lacag aan ka ururinay shaqaalaha iyo boorka iyo madaxda shirkadda Beko ka ururinay oo $70,000 aan ugu talagalnay culayska iyo dhibkii halkaa ka dhacay inaan uga qayb qaadanno, taasoo aan u qaybinay qayb aan ugu talagalnay inaan dadka dhaawaca ee isbitaalada ku jira aan siino, hawshaana waa qabanay. qayb aan ugu talagalnay guddiga gurmadka inaan ku wareejinno, qaybtaana waa ku wareejinay. qayb aan ugu talagalnay inaan kaga qayb qaadano dhismaha meesha ka dhacay burbur ka dhacay soo celintiisa, oo aan uga qayb qaadanayno waxa la yiraahdo korontada iyo wixii la xiriira. ayadana hawshaasi way socotaa insha Allah. dadkii meesha ku lahaa goobaha ganacsiga insha Allah haddii ay uu soo noqdo dhismahaasi. qaybta ugu dambaysa ee aan ugu talagalnay inaan walaaladayda la wadaagno macaamiisheeda ah waa qaybta ugu culus oo dadkii dhimashadu ka soo gaartay meesha iyada ah. muddadii aan maqnayn waxaan mashquul ku ahayn inaan helo xaqiiqo sax ah iyo macluumaad sax ah inaan ka helo dadkii culayskaasi iyo dhibkaasi soo gaaray. dadka dhaawacyada ah ee deeqdan lacageed helay ayaa uga mahadceliyay shirkadda Beko oo lacagtan soo gaarsiisay. haddii hal far ku xanuunayso, hal far oo ku xanuunayso xidhnaha oo dhan waxay ku soo jeedaan xanuun iyo taa ugu soo jeedaan. anigu taahan qabnay walaalaha iyo Beko waana la qaybsanayna, waana ku mahadsan yihiin. waana aad iyo aad ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo kooda yar iyo kooda weyn oo Beko sharaf iyo cizi Allah siiyo. aakhirana ilaahay kama habaabiyo waxaan wanaagsan. sadaqaadka ay bixiyeen, sadaqadu waa wax aakhiro moortay, waa zaad. ilaahay wuxuu yidhi watazawadu fa ina khayra zaadi taqwa. waxa lagu zaada taqwada ilaahay. horta ilaahay zaad khayr qabeena, shirkaddan ilaahay cirka Allah u qaado, wax hodan Allah ka dhigo. uma haysanin dad Soomaaliyeed oo hay-ad ah yaa dhibka dadka la qaybsanaya. yacni hadda ka hor ima soo marin dhibaatooyin fara badan oo dhacay oo aan lacag u ururinay oo aan soo diray way jiraan, laakiin haddana wax hay-ad oo waddanka gudihiisa ka shaqaysa oo maanta dadka dhibkiisa iyo dhibaatadiisa la qaybsanaya yacni waa ii kow, laba ii maahan. isla mar ahaantaas waxaan leeyahay Beko
khayr allah siiyo allah siyaadiyo ayaga iyo intii ka xumaatay dhibka dhacay oo la qaybsanaya walaalahood waxaan leeyahay khayr allah siiyo